qaabka ugu wanaagsan ee aad ku heli kartid maalgashi faa'iido badan ku dhala waa inaad waqtigaaga ku maalgelisid xuska alle. ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa wuxuu ku leeyahay fadhkuruni adhkurkum ihusa an idin xusay washkuru li mahadnaqa wala takfurun nicmadeyda ha ku gaaloobinina. shukriga alle wuxuu noqonayaa inaan xusno ama xuska Allah ayuu noqonayaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala sidoo kale quraankiisa wuxuu ku leeyahay wadhaakiriina allaha kathiran wadhaakiraat kuwa ama ragga alle xuso in badan iyo dumarka alle xuso in badan a'adda allahu lahum maghfiratan ilaahay wuxuu u diyaariyay dambi dhaaf wa ajran 'aziman iyo ajir weyn ayaa loo diyaariyay walaalayaal. maan ka faa'iideysano ajirkaas iyo dambi dhaafkaas faa'iidada badan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo diyaariyay. waxa laga yaabaa maalinkii in waqtigeena waxyaabo badan oo aan faa'iido noo lahayn aan ku dayacno, ama waxa laga yaabaa in maalinkii aad gaari saaran tahay ama aad lugeynayso ama aad meel sugayso oo aad feel ku jirto oo intaas aan iska aamusanahay ama aan ku mashquulsanahay dambi isku dir xan qiila waqaala wuxuu yiri waxay tiri wuxuu sameeyay waxay sameysay adiga wixii aad sameysay ilaahay dambi dhaaf weydiiso. naftaada xisaabi ku mashquul istighfar astaghfirullah 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 ku mashquul tahmid alhamdulillah ku mashquul takbir Allahu akbar ku mashquul tasbih subhanallah subhanallah. nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam kalimatani habibatani ila arrahman laba kalimadood oo Allah rahmaanka uu jecel yahay خفيفتان على اللسان عرب كان كفض ثقيلتان في الميزان ميزان كان كعلس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سيدو كان النبي وحيري صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عرب كاغا يوسن كزول إنو كقوين يهي حسك الله عرب كاغا وإنا برتا حسك الله يذكرك إلهي إنا برتوي عرب كوحي لبرو لقب سنة يا ولا ليال qof kastana wuxuu ku dhimanayaa wixii uu carabkiisa baray. hadii aad carabkaaga aad bartay quraan iyo dhikri waxaad ku dhimanaysaa adigoo dhikrigaas aqrinayo. hadii aad carabkaaga aad bartay heeso waxaad ku dhimanaysaa adigoo heeso aqrinayo. kalimadeeni intaas ay nooga egtahay. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.